dowladda Itoobiya ayaa ceeb kale la kulantay kadib qorshe ay ku doonaysay inay iskaga fududeyso cadaadisyada uga yimid dowladaha caalamka iyo ururada maxalliga ah ee kala kulantay xadgudubka iyo duulaanka ay ku soo qaadeen madaxbannaanida iyo midnimada ummadda Soomaaliyeed. Ra'iisul Wasaaraha dowladda Itoobiya ayaa wuxuu waday maalmihii la soo dhaafay qorshe uu ku doonayo in looga qaado wadankiisa xayiraadaha dhinaca socdaalka ah ee ku soo rogeen midowga Yurub. hase yeeshee waxa uu gorada la galay qorshe kale oo halis ah iyadoo qaramada midoobay hadda ay ku dhawaaqday in cunaqabateyn dhinaca dhaqaalaha iyo hubka ah ay saari doonto xukuumadda Addis Ababa haddii ay joojin weyso xadgudubka Soomaaliya ay ku hayso iyo qalalaasaha ay ka wado bariga Afrika. sida uu daabacay mid ka mid ah wargeysyada ugu afka dheer caalamka gaar ahaan kuwa ka soo baxa magaalada Nairobi caasimadda dalka Kenya, waxaa caasimadda wadankaas kulan xasaasi ah oo xogtiisa la qariyay uu ku dhaxmaray wakiilo ka socda midowga Yurub iyo ra'iisul wasaaraha dowladda Itoobiya oo uga qayb galaya caasimadda dalka Kenya shirka madaxda Afrika iyo bangiga adduunka. kulankaas waxaa si weyn loogu gorfeeyay xiisadda Soomaaliya iyo Itoobiya ka dhaxaloosan, waxaana la hordhigay ra'iisul wasaaraha xukuumadda Addis Ababa in gebi ahaanba uu burburiyo heshiiska uu la galay Muuse Biixi iyo inuu meesha ka saaro khilaafka sii koraya ee Soomaaliya kala dhaxeeya kaasi oo midowga Yurub ay ku tilmaameen in halis uu ku yahay badqabka geeska Afrika iyo sidoo kale inuu burburin karo taageerada muddada dheer ay la soo garab taagnaayeen dowladda federaalka Soomaaliya. ra'iisul wasaaraha dowladda Itoobiya ayaa la sheegay inuu ku madax adeegay in heshiiskaas uu qasab yahay inuu fulo, Itoobiyana waajib ay ku tahay inay hesho dekada ay wax kala soo degto iyo saldhig ciidamadooda baddu ay yeeshaan. fursadda kaliya hadda u furan ay tahay in Soomaaliya arrintaas ay ka helaan. waxaa Abiy Ahmed uu soo bandhigay in haddii Eritrea ay ka dalban lahaayeen ay heshay xukuumadda Siyaasa Faawaki xogta duulaanka ciidamadiisa oo dagaal hadda u diyaar garowday, wax rajahna aysan ka lahayn in biyo ay dhankeeda ka raadiyaan. dhinacyada kale ee la dariska ahna aysan u ogoleyn biyo ay siiyaan. hase yeeshee Soomaaliya heshiiskaas uu kala galay madaxweynaha Somaliland qasab ay ku tahay in la fuliyo. intaa kadib madaxda ka socotay midowga Yurub ayaa dhankooda waxaa si cad ay ugu sheegeen Abiy Ahmed in inta heshiiskaas uu ku taagan yahay aan laga qaadi doonin xayiraadaha dhinaca socdaalka ah ee lagu soo rogay xukuumaddiisa, isla markaana go'doonkan ay ku sii jiri doonaan. sidoo kale waxaa midowga Yurub ay soo gudbiyeen xog ku aadan in qaramada midoobay xitaa ay wado qorshe cunaqabateyn dhinaca dhaqaalaha iyo hubka lagu saarayo dowladda Itoobiya si sharteeda looga badbaadiyo geeska Afrika. waxaa la hordhigay in marnaba aysan qaldanaan karin dhinacyada ababa dowladaha deriska la dowladda Itoobiya hal wadan macquul ay ahaan lahayd. hase yeeshee in Masar, Eritrea, Djibouti iyo Soomaaliya xiisada xilligan ay kala dhaxeeyaan xukuumadda xabashida waxaa lagu sifeeyay qalad weyn iyo gaf siyaasadeed uu ku kacayo ra'iisul wasaaraha dowladda Itoobiya Abiy Ahmed. arrintan ayaa dhabarjab ku ah xukuumadda Addis Ababa sidoo kalena xaaladda ku sii xumaysay, waxaana dalabkiisii Abiy Ahmed ee ahaa in uu helo taageero looga qaado xayiraadda safarka u koray culays kale oo ka weyn oo ah inuu helay xogta qaramada midoobay qorshe ay wado oo cunaqabateyn lagu saarayo haddii uusan degdeg ku burburin heshiiska uu la galay madaxweynaha Somaliland Muuse Biixi Cabdi. sidoo kale waxaa arrintan culayska kusii kordhinaya dacwado ay gudbiyaan Masar iyo Djibouti oo lagu daray Eritrea oo dhammaantood ka cabanaya xadgudubka dowladda Itoobiya iyo xasaradaha gobolka uu ka abuurayo ra'iisul wasaaraha xukuumadda xabashida. madaxweynaha dalka Kenya dhankiisa ayaa la sheegay xitaa inuu ku jiro dacwadan oo si hoose qaramada midoobay loogu gudbiyay loogana dalbaday inay ka qabato qaaradda gaar ahaan gobolka geeska Afrika dhaca dhibaatooyinka uu abuurayo ra'iisul wasaaraha dowladda Itoobiya oo wax walba u qaribaya si darihiisa siyaasadeed uu helo si doorashooyin aysan wadankiisa uga qabsoomin oo xukunku u sii joogo iyo si uu abuuray nidaam kaligii talis ah oo uu ku maamulo dowladda Itoobiya. dhibaatooyinka ka socda gudaha wadankiisa ayaa hore mashaqo ugu filnaa ra'iisul wasaaraha dowladda Itoobiya iyo xukuumaddiisaba, waxaana qaramada midoobay ay hore ugu adeeysay xukuumadda xabashida ciidamadeedu in xasuuq bini'aadanimo ay ka geysteen gobolada Amxaarada, Tigreega iyo Oromada. haddase waxay u muuqataa in xaaladdu ay ka sii dartay, dagaaladu ay sii xoogeysteen, isbahaysyana ay ku dhawaaqeen Tigreega, Oromada, Amxaarada iyo sidoo kale dowladda Eritrea oo dhammaantood u diyaarsan inay iska kaashadaan dagaalka lagula jiro xukuumadda ra'iisul wasaare Abiy Ahmed. haddii sidan xal uu ku sii socdo waxay u muuqataa in Soomaaliya, Masar iyo Djibouti dhankooda ay ku biiri doonaan taageerada qoomiyadaha ka soo horjeeda
ra-iisul wasaare Itoobiya ayna hab maskaxaysan kula dagaalami doonaan xukuumaddiisa beddelkii la isku fara saari lahaa xuduudaha amaba gudaha dowladahaas cadaawadda baan xilligan Itoobiya u muujinayso ayna isku dayeyseen ay ka dhacdo oo ay ka goosato qayb ka mid ah dhulkooda iyo biyahooda.